oo ka kala socotay warbaahinta dalka ayaa waxa shir uga furmay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Shirkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa waxa laga hadlayay arrimaha doorashooyinka ama wakaalinta ay saxaafadda iyo guddiga doorashooyinku ka qaadan karaan horumarka dalka. Shirkan oo maanta lagu soo gabagabeeyay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxa isugu yimid marti sharaf xubno ka kala socda 3 xisbi qaran iyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. madashaasi haddaba waxa ugu horeyn hadal kooban halkaasi ka soo jeediyay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Axmed Xaaji Daahir Cilmi. geesta kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay Maxamed Axmed Xirsi oo ah afayeenka komishanka doorashooyinka. sidoo kale Cabdilaahi Maxamed Daahir Cabdilaahi Cukuse ayaa isaguna ku hadlayay afka warbaahinta hadaladoodina waxa kamid ahaa ilaahay ka saareen ay guul weyn u soo yeelayso hadii kana inagu sidii Kenya qaybta saxaafadda lagu kala raaciyay inay dawladda dhacay ku yeelatay in ay saxaafaddu dawladda qaadanin ee ay sida kale u shaqeyso oo inta awoodeeda ay ka badbaadiso madeeda intaas oo kala baxay hadii shirki ay saxaafaddu ay lahayd si ay isugu raacaan habdaqanka ay ku shaqeyn doonaan waqtiga doorashada ay dhacayso ee lagu soo socoto taasoo runtii laba arrin ah oo mid waxa weey display-ga marka hore ee aynu kaararka ka bixinayno liiska soo bandhigayno oo mar ah iyo marka doorashada ay noo socoto labadaba waxaan ognahay ahmiyadda ay leedahay arrintaasi iyo ahmiyadda warku uu leeyahay qofka sida warku uu gaadho ayuu ama u fahmaa ama u ficil qaataa ama uu wargalaa warbaahintu waa qiimaha ugu weyn ee maanta dadka kala xagi kara wanaagga iyo xumaanta kala sheegi kara xaqa iyo xaqdarrada kala sheegi kara waxaan baryayaa sida aynu u heshiinay in ay xisbiyada qarankuna ee maanta waraaqda loo saxeexay la iskugu yimiday ee la isla gartay inay heshiis noqoto waxaan ku boorinayaa xisbiyada qaranka ee Soomaaliland inay iyaguna u heshiiyaan saxeexan ay maanta sida wadada shirka ah ay u saxeexeen saxaafadda Soomaaliland ayaa ah kii ugu horeeyay ee noociisa oo kala ah ay si wada jira ay u saxeexaan saxaafadda Soomaaliland sagal muxuu ka xasano Universal TV Hotel Ambassador Hargeysa.